xubintiisa taranka ma aragtay in ay ku laabatay ma noo xaqiijin kartaa in dhacdadaas ay run tahay oo ay ku laabatay oo sidii hore aysan ahayn ها wiila ii fiiri dhahay waa ku laabatay oo dhahay laakiin wax yar waa soo baxaysa asna waa weydii wuxuu dhahay wax yar igu soo jeedaan marana san fiirin waa aan dhan sharreeyay jirkay walba ku biyaa nagadi markaas wareeray dhiilay oo hormuud waxaan oo xirto oo taleefanaha lagu soo diray oo nimanka saan lagu yeelay wiilisha saan lagu yeelay inay oo ka xirtaan aan u diro lahay maxamed cabdiqaadir xasan oo ku nool xaafadda Onodka ee magaalada Baydhabo arrin la yaab leh ayaa saaka ku dhacday kadib markii xubintiisa taranka uu ka dareemay inuu waayay maxamed oo arrinta ku dhacday garabkeena fadhiyo asaga ayaan su'aalahaas weydiin doonaa sida wax ugu dhaceen iyo waxyaabaha keenay inuu iska shakiyo xubintiisa taranka mid ka mid ah maxamed soo dhawow marka hore magacaada noogu bilow sida wax kugu dhaceen maaleero Cabdiqaadir Xasan Abdinuur anoo idus guruga mobilkoos waa sida laayay tookooda laayay magobona tooglamada laayay tooglamada tamagobona fsan fiiri la mobilka lantusa laay wareerilay okay taleefanka miyaad qabatay mise waad fiirisay oo kaliya waa fiirilay kadib markaad fiirisay maxaa dareentay sidaas ku ogaatay xubintada taranka inay wax iska bedeleen oo ay kugu laabatay ama yaraatay marana san fiirin waa aan dhan sharreeyay jirkay walba ku biyaa nagadi markaas wareeray dhiilay baan oo waa dhacday okay kadib hadda waqti xadarkan la joogo xubintada taranka ma sidii horaa mise waa sidii xaaladeeda ato aroonto sidii walaa ku roonto dareemadan laan macna wax dhama dareemaysid okay arrintan saaka kugu dhacday horey ma ula socotay oo ma uga taxadirtay in arrintaas kale kugu dhacayso ma maleeyaan dadka dheegi laakiin ma maleeyaan saaso hadda xaaladda waa sida marka caafimaadka filatrono dareemay wala ma dareemo qaskaynkeyga neef dabar qaskaynkeyga inta kalmaan neefsado lambarka dheeriye si daawra ku bilaawday walan dambe mooshi laakiis anama bagowne mobilka oo bilaaway gabarto baale fidida tuslaa ismo mobilkan qoodi oo fiirid atlaani sulmaayani ba wareereedi ma qowanan ma bagowne ban fiiri leh waad fiirisay oo kaliya fiiri wareerilay loo ku wareeray surmi inuu dad tuslaa lambarki deed lambarka neeraa waa wareeray dhiilay okay hadda lambarka ma xasuustaa si daawir bas ku xasuusto itodobado hooyada dhashay wiilka Cabdiqaadir Xasan Cabdi ayaan kula kulanay xaafadda Onodka ee magaalada Baydhabo wiilka ay ku dhacday dhibaatada ah taasoo waay mid ka mid ah xubintiisa taranka wiilkeeda sida uu ahaa iyo wax uu dareemay xaaladda ka hor xaaladda hadda uu dareemayo waxyaabaha sababay in xaaladdan ku dhacdaan ayaan ka warsanay hooy soo dhawow sida wax u dhaceen cunuga taleefon gabadhooda u keensatay waxay dhahday ii sameey bahalka mobilka maxaa la dhahay bahashan oo la sameynayo 2G-ga igu sameeyay dhahday taleefonka doo ku sameeyay cunuga taleefonka waa la soo diray waa qabtay waa dhacay maskaxdeeda waa baxday oo dhahay taleefonka xagga camal oo ku tuuray asna waa dhacay okay su'aasha ku diinay waxay tahay intuu taleefonka qabana ka hor ayaantan waxaa jirtay dadka baraha bulshada la isla dhexmaro la isticmaalayay taleefanka qabashadiisa in xubinta taranka la waynayo hore uma soo ogin ba in caqabada jirto kale taleefon qabanina dhahay taleefona waa la isku diloyaa maxaa la dhahay alaabta dhanaa buxayso taleefonaas qan hooy waxaas wax jiraan ma ahan wuxuu dhahay ha safe gareysin iska dhaaf waxaas waa jiraan ogaanteed laawaan dhahay wuxuu dhahay taleefon ma qabiyo maxaa iga galay okay hadda adi wiilka markuu dhacay arrinta ay ku dhacday xubintiisa taranka ma aragtay in ay ku laabatay ma noo xaqiijin kartaa in dhacdadaas ay run tahay oo ay ku laabatay oo sidii hore aysan ahayn wiila ii fiiri dhahay waa ku laabatay oo dhahay laakiin wax yar waa soo baxaysa asna waa weydii wuxuu dhahay wax yar igu soo jeedaan oo dhahay okay fariinta aad u diraysid dadweynaha ku dhaqan magaalada Baydhabo arrinta malmaha way soo badatay maxay tahay ugu dambeyn fariinta waxaan u diraa in oo hormuud waxaan oo xirto oo taleefanaha lagu soo diray oo nimanka saan lagu yeelay wiilisha saan lagu yeelay inay oo ka xirtaan aan u diro lahay okay wiilka hadda xaaladiisa waa sidee wiilka xaaladiisa kasto maskaxdiisa ma joogto caadi ma ahan waxaa jirto culimo oo magaalada ku nool deegaanka ku nool ma la kaashateen wiilka quraan ma saarteen xaaladiisa hadda maxaa nii qorshaysan quraan waa la saar guriyana waa lagu saaray masaajidkana waa loo wada waa lagu saaray haddana masaajidka waa laga soo wada culimadii waa soo raacday guriga haddana lagu saaray kastoo miirkiisa waa imaaday waa roonaaday haddana waa la soo wada inta quraan lagu saaray okay ugu dambeyn fariinta culimadu u diraysa maxay tahay
culimadu waxaan u diraa inay oo maxaa la dhahay kuwaan oo wax sameynayaan inay ilaahay dadka qabto shirkadda hormuudna shirkadda hormuud intay waxaan naga xirtaan u diri lahay fariin